xaalka Jubbaland wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd abid xiisada Jubbaland iyo dawladda federaalkuna waxa ay maraysaa marxaladii ugu xumayd abid ayay maraysaa dabada dhinacna waxba iskuma ay sareebanin magaalada Kismaayo maanta waxa gaadhay saraakiil sare oo ka socday dalka Itoobiya oo kulamo la qaadanayay Axmed Madoobe iyo mas'uuliyiinta ugu sareeya maamulka Jubbaland isla sidaas la mid ah madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland wafti uu hogaaminayo ayaa isagana iska dhiibay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya marxaladii marka ugu xumayd adid ayay Jubbaland wajahaysaa dawladda federaalku ciidamo ayay ku soo daadguraysay oo ciidamadii ugu badnaa ayay keentay ilaa iyo bari maalmaha ugu soo aadanna daadguraynta ciidamada ayaa socda waxa intaas sii dheer ciidanka Jubbaland dhaxdooda naftirkooda iyaga naftirkooda waa lagu jiraa dhinaca kale to dhaqaaqyada Itoobiya ka wada gobolka Gado oo ciidamadii ugu badnaa ayay halkaas keentay Itoobiyana ku darsadee dagaal toos ah xukuumadda Xasan inay la gasho ayay u diyaar garowday warshada waa daawadayaal waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku dul istaago xogihii ugu dambeeyay Jubbaland iyo dawladda federaalka xiisadii Jubbaland iyo dawladda federaalka iyo meesha ay marayso Jubbaland waxba ma aysan u reebanin Xasan Sheekh Maxamuud waliba Axmed Madoobe iyo tiimkiisa dagaal bay iyaga naftirkooda ku jiraan inta tabartooda ayayna raafanayaan dawladda federaalkuna tallaabooyin aad u adag ayay qaaday saacadihii la soo dhaafay waan la wadaagi doonaa dhinaca dawladda federaalka tallaabooyinka ay qaaday dhinaca Jubbalandna wafti bay Itoobiya ka socday ba magaalada Kismaayo gaadho saraakiil Itoobiyana ayaa magaalada Kismaayo tagay oo kulamo la qaadanaya Axmed Madoobe iyo tiimkiisa madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayidna wafti uu hogaaminayo wuxuu kala degay magaalada Addis Ababa Itoobiyana waxa ay u diyaar garowday dagaal ay la gasho xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud intaasi waa tallaabooyinka dhinacyadu ay qaadeen dawladda federaalka hadaba hawl adag baa u taalo waxay ummaddu isweydiinaysaa waa kii diyaaradihii la xayiray xaggay soo mareen saraakiishan Itoobiya ee ka soo degtay garoonka Kismaayo xaggay ka imaadeen xaggay soo mareen ma dhulkay soo mareen halkay soo mareen وعليها اللي سويدنا هول وين باوت الله حكومة حسن شيخ محمود ماشوا لبضة نعمة والله فشل مي أحمد مدوبنا هريب وحويسجنا الشاقي ديارة دي نكسو دقي كرين راس كبوني أو جرانكو حرياي دولته قدر كاسويت جبسي إن أحمد مدوبنا مضحي كرو ديارنا كمان دقي كرتان حمر صومرنا إيادنا أحمد مدوبنا وجبيو هذا وان جول بهذا اللي كانت تاجي وأنتم استعجلون تلابويك دنيادو أي قادين يحويه قدام بيجي حسد Jubbaland iyo dawladda federaalka ayaa muuqaalkan ku qaadan dhigi doona hadoo la idmo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nagu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownee Jubbaland iyo dawladda federaalku horta dagaal bay u dareereen labada dhinacba ama la isku reebanin ama mid dawladda ha noqdo ama mid gacan ha noqdo mid bilaabi doona laba garanayo laakiin marxaladda hadda ay marayaan Jubbaland iyo dawladda federaalku waa marxaladii ugu xumayd abid ayaa hadda la kala maraya maanta magaalada Kismaayo waxa soo gaadhay saraakiil Itoobiyana ba soo gaadhay oo kulamo la qaatay madaxda Jubbaland ama dhaxda tiimka Axmed Madoobe ayay kulamo la qaateen isla sidaas la mida dawladda federaalku ciidan bay ka soo dajisay deegaanka Raas Kambori oo Axmed Madoobe uu ka mamnuucay inaysan diyaarad ka soo degi karin taasoo meesha ka saaraysa in Axmed Madoobe uu soo wax galaan gala ku lahayn deegaanka Raas Kambori oo wax awood oo saameyn uu soo ku lahayn oo ciidankiisu aysan ku lahayn isla sidaas si la mid iyadana Xasan wuxuu mamnuucay diyaarad aan lagu baarin garoonka cadde magaalada Muqdisho inaysan imaan karin ay ka degi karin Kismaayo maantana saraakiil Itoobiyaan oo diyaarad wata ka soo degay oo diyaaradoodii wata ayaa ka soo degay iyadana taasi Xasan waxay tusinaysaa inuusan hawada Kismaayo inuusan xakameyn karin ba iyadana halka ka soo baa hadal nima runta ka sheegay been baa u kaydsan ma aha anu muhiimada inaan mucaarad una ku ahay Axmed Madoobe xaqiiqadan iftiiminayna labada dhinacba marka hadda wan gool baa la kala taagan yahay hal gool ayaa horta hadda la kala haystaa dhanka hawada Axmed Madoobe saraakiil Itoobiyaan u yeedhay Kismaayo ka soo degeen kulamo la qaatay haddana waxa weeye wadadaas ay marayaan oo diyaaradooda ay hadana ku tagayaan ilaa dhul la mara ma jiro dhul ma mari karaan
taasi waxay ku tusinaysaa marka in Addis Ababa diyaaradda ka soo kacday ay ka soo degi karto magaalada Kismaayo. dabcan waa diyaaradaha ciidanka kuwa rayidka maaha, ma aqaano mise waa kuwa rayidka lama garanayo. kullay saraakiishan diyaarad ciidan baa waday Kismaayeyna ka soo degeen. isla sidaas la mid ah madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ee hore Maxamuud Sayid wafti uu hogaaminayo Addis Ababa la galay isagana. Addis Ababa iska dhiibay caawa Addis Ababa ku sugan yahay, halkaas baa lagu soo dhaweeyay. waxaa ka sii horeeyo shalay isdhiibay wasiirkii amniga oo isagana isku hayd ay yihiin ninka la yiraahdo Maxamuud Sayid, gobolka Gada ka soo wada jeedaan labadoodaba markaas si kale ugu dhigo. isagana doolar uu iska dhiibay saraakiil Ethiopian qaaday. waxaa la sheegayaa inuu isagana Addis Ababa u sii gudbay ayaa la sheegayaa. si kastaba isdiidooyinka siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalka gacmo kale ayaa hadda soo galay oo waji cusub ayay yeelatay. markii hore waxaa ishayay filla Soomaaliya iyo filla Kismaayo ayaa ishayay oo labadaas ayaan lahayn balaan u kaadina dagaalka meeshuu gaaro iyo sida ay xaalku noqdo. laakiin hadda gacan saddexaad baa soo gashay oo Ethiopia soo gashay meesha. Ethiopia shalay waa ogsoonaydeen dhaqdhaqaaq ciidan inay ka waday gobolka Gado. haddana waxay ku darsatayba Kismaayana kulamay ka wadaayo saraakiil bay u soo dirtay. madaxweyne ku-xigeenkiina waa uu yeedhay, ninka la yiraahdo mas'uul wasiirana waa uu yeedhay oo kii amniga uu ka mid yahay. Ethiopia marka waxay si toos ah ay dagaalka ugu soo biirtay marka Jubbaland iyo dowladda federaalka u dhaxeeya ayay toos ugu soo biirtay. way cadaysatay inay dagaal diyaar u tahay ayayna cadaysatay. Jubbaland horta marka xaalkeedu waa sidaa, waana garabka kaliya ee ay rajeynayaan Axmed Madoobe inay garab ka helayaan waa dhinaca Ethiopia, meel kale ma jiro. Ethiopia dagaal baa ku furanoo Xasan Sheekh Maxamed wuxuu ku yiri December hal askari oo kaada hadan ku arko gudaha Soomaaliya aday ku taala. iyagana way jawaabeen waxa la yiri gobolka Banaadir horta bal amni ka soo dhigo. gobolka Banaadir marka amni ka soo dhigto marka anaga ciidankaanada la hadli kartaa oo bixi dhihi kartaa. adigoo gobolka Banaadir ba ka soo bixi karin maxaad Soomaaliya xukumi kartaa baa lagu yiri. micnaheedu marka waxay tahay Ethiopia hadda waxay rabtaa inay awood adeegsato oo ay awood gudaha Soomaaliya ku joogto ayay doonaysaa. dowladda federaalkan hal askari ma arki karnaa la yiri bisha December ee hadda aan ku jirno dhamaadkeeda meeshay ku dhamaato askari Ethiopian hadan ku aragna xabada naga dhaxaysa bay dheen. 24 saac ee ugu dambeeyay Ethiopia ciidamay soo gelisay gudaha Soomaaliya. dhaqdhaqaaqaasna waxa way bilowdo saraakiil Kismaayo tageen. madaxweyne ku-xigeenkii waftigu hogaaminayna Addis Ababa loo diray oo waxaa la yiri sabab tagbal maadaama Axmed Madoobe waarana u jiran yahay haddana isku carashubay ma bixi kariyo. wuxuu yiri adigu Maxamuud Sayidow orod heshiis la soo gal buu yiri. xaalka marka Jubbaland iyo dowladda federaalka halkaas soo maraya. Axmed Madoobe iyo tiimkiisa waa rafanayaan, waxay isku dayayaan inay dhaqan galiyaan isku carashubkii sharci darrada ahaa ee asbuuc ka hor ay isku carashubeen. kaas bay marka u gogol xaarayaan. Ethiopia de garab iyo gaashaan bay ugu tooday waad u jeedaan iyadoo Xasan ku xumeynaysa dagaalka ay kula jirtana sii xoojinaysa ayay Jubbaland iyo maamul goboleedyada xuduudda dhacay waxay doonaysaa inay xoog ku soo qabato bay doonaysaa. dalkeeni marka horta halkaas soo maraya. Ethiopia waa soo dhax gashay, Axmed Madoobe garab istaagtay. waxaa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay tashato oo dib la iskugu noqdo ayaa muhiim ah. waa in la tashado. Ethiopia maxay horta daro inoo haysaa la yiraahdo hadday dan inoo hayso inaan taageerno, hadday dan inoo haynina waa inaan ka hor imaano oo aan waxa weeye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan garab istaagnaa loo baahan yahay. taasay horta saas weeye xaalku. Axmed Madoobena waa rafashadiisii ugu dambeysay oo Ethiopia ku ooyo wuxuu yiri maxaad iga dhowranaysaan oo waliba Ethiopia maamulkan hadda deegaanka Soomaalida sida wada ogsoontihiin siyaasiyiinta iyo shacabka cid ka rabtay ma jiro. dowladda dhexe uu rabaa inuu la macaamilo Xasan ay isku dhacsan yihiin. taasoo marka wuxuu doonayaa inuu miciimido xaggan Kenya waxay tir waraan dhexaad baan ka nahay hawlihiina xalista wax badan baan anagu Axmed Madoobe ku garab taagnayni hore u socda leeyahay. hadda wax iska cil kartaan iska cil hadii kale dowladda federaalka isku dhiibo dadkaada ummadaada dhinac ka raac baa lagu yiri. garab waa ka waayay micnaha marka garab waa ka waayay xaggan Kenya. Ethiopia marka ku galgashay waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladana dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa hadda online.